السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعنا وضيال كسر دوادا برنامج كمدرسة سياسية وقت كذا وطن سوم نيوز تي في حرنته كلية هاي مقالة المقدسة. برنامج كوحة مرتكو وزير كيهري وزارة أمنية دولة فدرال كصوماليا. أهنا مدن كتيرسن برلمان كجمهورية فدرال كصوماليا مدن عبد الرزاق عمر. مدن وهرنتي وحربينا كويديو واحد قريب كتاي مدنياشة برلمان كجمهورية فدرال كصوماليا وحب باقي كالفريق شناد كلن كيسي كوباد يا لباد سبب الله شيء كرملان محيط هاي يدل الأمينسين هاي إن حلبانو لما يستري كرا كرم كيكوسوين مقدسو إنه باقدو كالفريق برلمان كجمهورية فدرال كصوماليا. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waa adiga iyo som news iyo dawadayaasha inta waa mahad celinaya. Waa sax waaye baarlamaanku waa baaqday wuxuuna u baaqday kooram la'aan. Waxa wax laga xumaadaa xildhibaanadii oo waxay u dhaartay inay yani shaqadooda qabsadaan kutaab jaamac u maray markii la soo dooranayay maxaa la yiraahdaa shaqooyin gaar ah ama waajibaad gaarana leh inay yani imaan waayaan oo ay soo xaadir waayaan golaha shacabka wax laga xumaado waaye waxaan aaminsanahay inay joogaan kooram ama kuntidii loo baahnaa inay yani xaadir ay noqoto si baarlamaanka loo furo sida aan maalinkii wararkaynu ugu soo gaareen waxa xildhibaanada ugu badan ee ka maqnaa meesha waxay ahaayeen xildhibaanadii wasiirada ahaa ee xukuumadda qaybta ka ahaa sababta ay la maqnaadeen ma naqaano waxaa jira ajandaha maalinkaas la rabay in la horkeeno baarlamaanka oo ahaa ajando warbixin laga sugayo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka waxaa jiray in yani inta badan xildhibaanada markaas xaadirka ahayd ay u arkayeen in ahmiyadda koobaad la siiyo amniga isla markaasna ay keeneen motion ay rabeen in ajandaha laba item laga dhigo kii reportka dastuurkana la dhageysto laakiin midkii amnigana oo markaas muhiimad gaara loo wada arkay in asagana lagu soo daray in la rabay marka ma aysan dhicin waxaysan u dhicin waa yani sidaad sheegtay kooram la'aankaas oo xildhibaanadii aysan soo buuxinin marka waa wax laga xumaado waayo runtii xubno ka tirsan baarlamaankan aad qaybta ka tahay ayaa sheegay in golihii shacabka uu noqday golo sacab aragtidaas ma qabtaa والله وعرقتي جرت واي عرقتي محل يراهدا sababtoo ah xildhibaanka saddex mas'uuliyadood baa saaran saddex waajibaadka shaqeeya qofka xildhibaanka saaran waa saddex waa kow inuu yani ka qayb qaato uu yahay sharci dejiye inuu yahay waa laba oo waxa weeye inuu yani masalaad uu sameeyo maxaa la yiraahdaa dadkii soo deegaankii laga soo doortay shacabka Soomaaliyeed inuu masalo waa saddex waa inuu korjoogteen ku sameeyo xukuumadda waxaa muuqata marka midii ahayd oo ugu muhiimsanayd oo korjoogteen in xukuumadda lagu sameeyo inay meesha ka bixi rabto haddii ay arrintaas meesha ka baxdana dee sida ay dadka aragtidooda qaarkood ay ku tilmaameen in la yiraahdo waa golo sacab waxay noqonaysaa yani tilmaan ama sifo u yeelan kara baarlamaanka iyo xildhibaanada waxa kaliya oo yani lagaga bixi karo meeshaas iyo arrimahaas yani shacabka aragtidooda in wax laga bedelno waxay tahay inay xildhibaanadu ay noqdaan xildhibaanadii la soo dhaariyay u soo dhaartay inay shacabka masalaan shacabka hadaysan masalaada meesha ka baxdane oo aysan xukuumadda la xisaabtamin yani waxa imaanaya waxa waa in lagu sifeeyo inaad tahay golo sacab inaad noqoto markaas waxaad ka tirsan tahay guddiga amniga ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya horena waxaad u ahayd wasiirkii amniga markaad eegto xaaladda amni ee Muqdisho iyo sida ay wax u dhacayaan bal aragtidaada in la wadaag amniga guud ee wadanka horta waa la wada soconaa inuusan amniga uusan wada gaarin wadanka oo dhan sida socotana waxa maamul goboleedyada ayaga ayaa badanaa amnigooda haysto inta badan maamul goboleedyada naftooda meelaha ka taliyaan waa meelo magaalooyin ah magaalooyinkana jidad baa isku xiran waxa la yiraahdaa main supply routes la yiraahdaa oo loo baahan yahay magaalo marka ka soo baxaysa magaalo kale inaad tagaysid inaad nabad ku tagi karto marka magaalooyinka kaliya laga taliyaa baadiyihii jidadka isku xiraya magaalooyinka wax ka taliya mala waxa ka taliya waa shabaab
waddanka amnigiisa guud markaan ka hadalna waayo oo amniga guud waa sidaas waxaa soo haray caasimadda muqdisho amnigeeda siduu yahay sababtoo ah amniga waddanka waxaa lagu qiimeyn karaa sida uu yahay caasimadda amnigeeda sida uu noqdo ayaa lagu qiimeyn karaa waxaan ognahay amniga magaalada muqdisho inuu faraha ka baxay inaan la isku halayn karin amniga shacabka Soomaaliyeed ay haystaan waa amni rabbaani ah dhinaca rabbiga ka socdo oo ay dadka isaga badbaadsan yihiin moogi amni ay dawladda sugtay oo ay ummadda ku badbaadinayso oo amniga shacabka ay ku ilaalinayso ma jiro waxa kaliya amni loo sugo waxa waaye waa aragteen jidad baa la xiraa waxa loo xiraa waxa waaye waa meelaha xarumaha dawladda institutionska dawliga ee meelaha ay ka dhisan yihiin laga soo bilaabo sayidka ilaa ay maxaa la yiraahdaa bila Soomaaliya ilaa tiyaatarka doonahaas kaliya xiran waxaa la rabaa amniga markaan ka hadlayno amni shacabaan ka hadlaynaa haddii aan ka hadlayna amnigaas xitaa midka ay hadda ay ka shaqaynayaan oo ahaa amniga ahaa inay sugaan siyaasiyiinta iyo dadka dawladda u shaqeeyo asaga naftiisa waa lagu feelgaroobo yani waa ujeedaa inta xildhibaan inta wasiiro oo la dilay qaraxyada sidoodaba u socdaan marka dareenkayga amni waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed inuusan wax amniga oo la isku halayn karo inaysan jirin shacabkana ayaga in amnigooda ay ilaashadaan sababta amniga waa mas'uuliyad wadareed waa la wada leeyahay amnigu inay ka qayb qaataan waa loo baahan yahay ayagana kooda ay ilaashadaan laakiin inaysan wax isku halayna oo dhinaca xukuumadda iyo dhinaca dawladda inay amnigooda sugto inaysan jirin inaan yani dareenkaas waaye fariinta aan rabay inuu gudbiyana waa fariinta shacabka Soomaaliyeed maxaad is leedahay waa laga gaabiyay meelo badan laga gaabiyay horta maxaa la yiraahdaa shabaab oo weerar lagu qaado goorma ugu dambeysay labadii sano oo maxamed cabdullaahi farmaajo halkan joogay shabaab weerar ma lagu qaadin nasiib wanaag waxaa la helay in diyaarada Mareykanka ay duqeysmo ku hayaan shabaab meelihii ay ku dhuumeelaysanayeen inay yani aad ay u duqeeyaan yani waxay ahayd fursad qaali ahayd oo la rabay in laga faa'iideysto oo weeraradii la sii kordhiyo si intii ka soo baxsatay oo rabtay in magaalada soo gasho looga hortago ma aysan dhicin waxaa dhacay shabaabkii inay si xoog leh ay uga soo baxaan meelihii ay ku jireen in magaalada xamar ay soo galaan midda koobaad waa midaas midda labaad waxa waaye shabaab marka la dagaalamayso waxa lagu dagaalamaa xog iyo sirdoon sax ah hay'adda sirdoon nabadgelyada sirdoonka meesha way ka baxday hay'ad jirta ma aha waa la baabiyay sida shacabka Soomaaliyeed ee la wada socdaan marka xog iyo sir yani la ururiyay oo lagu duulaan tago oo cadawga lagu beegsado oo meesha ku soo socdaan laga war helo oo qaraxyada ay abaabulayaan looga helo meesha way ka baxday midda saddexaadna waxa waaye ciidamada AMISOM naftooda way iska fadhiyaan oo magaalada xamar iyo maamul goboleed meelaha magaalooyinka ay yani ay joogaan kaliya wax weerar ah oo ay qaadaan ma jirto marka AMISOM lacag badan bay inta ku bixisa in la xisaabtamo oo la yiraahdo aaway yani operationskii offensive ahaa ama weerarada ahaa oo shabaab lagu qaadayo aaway oo loo baahnaa in yani lagu yareeyo maxaa la yiraahdaa weerarada shabaab marka waxaa soo baxday dawlad difaac uga jirto magaalada xamar dhexdeeda aragti midaysan aan kala hayn amniga sida loo sugo istiraatiijiyo iyo siyaasad amniga wax looga qabana aan lahayn guud ahaan marka xaaladda guud يعني waxyaabaha keena amniga inuu faraha ka baxo waa waxyaabahaas waay xagee wax laga bedeli karaa wallahi de inta waxyaabada aan sheegayba waa lagu bilaabi karaa waxa lagu bilaabi karaa maxaa la yiraahdaa weerar in lagu qaado AMISOM in lagu qaado shabaab oo ay ku qaadayaan AMISOM iyo ciidamada militariga Soomaaliyeed in ku qaadaan in xog iyo sir la helo ciidamada dagaalamaya shabaabka in loo dhameystiro makaaniyaadka u baahan yihiin agabka ciidan u baahan yihiin logistics ay u baahan yihiin maanta waa arkaysi ciidamadii militariga yani ku jiray furumaha difaaca fadhiyay oo shabaab celinaya waa ogtahay inay isaga soo baxeen mishaar la'aan cunto la'aan ay uga soo baxeen marka waxyaabahaas oo dhan oo yani wax sahlan ma aha amniga Soomaaliya budgetka Soomaaliya dawladda nus waxa lagu bixiyaa amniga haddana waa arkaysaa sidii hay'adaha maxaa la yiraahdaa UN-ka iyo hay'adaha caalamiga meesha ugu badan oo ay lacagta geliyaan waa amniga booliiska Soomaaliyeed 7500 oo kamid ah mishaaraadkooda waxa bixisay EU-da bixiso militariga waa
24 kun oo Soomaali 24 kun waa ciidamada sida ay yani tirakoobka la haysto 12,500 kamida waxaa mishaaraad siiyo Mareykanka yani ayadoo saas leeyahay haddana amnigii inuu ku soo aruuro villa Soomaaliya iyo sayidka inta u dhaxayso oo waliba qaraxyadii ay ka dhacayaan wax laga xumaado waay muddo dalka ma lahan taliya nabad sugid maxaa ugu wacan taliya nabad sugid ma laha wadanka waxyaabo badan aan jirin wasiiro yani waxaa jiro xukuumadda iska bannaan muddo 4 bilood 5 bilood yani haddii yani laga leeyahay muhiimad iyo in yani dawladnimadii inay hore u sii socoto wasaaradda waxaan ognahay iska bannaan ilaa muddo taliyaha nabad sugidda wuxuu bannaanaa laga bilaabo August sanadkii la soo dhaafay ilaa hadda waxaan u maleynayaa waa 8 bilood taliya la'aan waaye taliya ku xigeenka oo waliba acting maxaa la yiraahdaa Fahad Yaasiin maba joogaba wadanka Nairobi uu badan yahay u maleynayaa meeshaan lagu mark xamar yaa ku arkay cid ku aragta ma jirto cid yani asoo yani amni ka hadlaaya ama television soo fadhiistay oo dhahaaya qaabkan aan rabnaa inaan wax u waxayna ma la arko taliya ku xigeenkii nabad sugidda isla markaasna taliyihii nabad sugidda ku simihii ahaa ama la arkay cid dhahaysa yani asoo ka hadlaya waraysi ama la arkay ayadoo la wareysanayo oo fikirkiisa iyo aragtidiisa uu rabo inuu amniga ku sugo wuxuu ka qabto ayadoo leeyahay ama la arkay maya marka amni yani waa dadkaas ka hadlaysa aad iyo aad saameyn badan ay ku leedahay maqnaashaha taliyaha nabad sugidda aan la magacaabin saameyn badan ay ku leedahay ma shabaabka ayaa xoogeystay mise dawladdii ayaa tabardaraysay marka adeegto sida ay wax u dhacayaan shabaabka xoogooda horta marnaba hoos looma dhigi karo shabaabku mar walba xoogay lahaayeen waa urur yani maxaa la yiraahdaa amniyaadkiisa iyo maxaa la yiraahdaa yani unitiska maaliyadda lacagaha u soo aruuriyay say u shaqeynayaan hadda aragto waxay la mid yihiin dawladda Soomaaliyeed say u shaqeysay ayaga say u shaqeyn waxa mararka qaar kood isleedahay ayaga ayaa yani shaqadooda ay aad yani u sarreysa marka shabaab yani dawladda uu yaqdayna malihi oo yani shabaab xoogeysay lama laha laakiin mid ay jirto shabaab mar walba oo weeraro lagu qaado oo hadda yani waxaan ognahay weeraradan oo droniska iyo Amerikaanka ay ku wadaan dhaawac badan waa u geysay dhib badan way u geysay mar walba oo dhibkaas loo geystana ayagana waa in ummadda Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan weerarada ay qaadayaan oo arkaysid waxa waa wali waa noolnahay waa dhibkiina loo geystay dhib kale taan geysanayna waa macnaheedu intaas waa ma aha yani wax kale ma aha waa ayaga naftooda waxay u tahay survival mode inay nool yihiin in la ogaado inay rabaan waa laakiin xoogoodii baa wiiqay oo yaraaday shabaab ma aha xoogooda in fact waa sidii si ka badan waa la socotaa hubku ma yaro yani inta mar oo ay yani hub ka qabsadeen ama ciidamada dawladda ama ciidamada amisom ay ka qabsadeen aqligaaga diidayo hub yani waa helaan meelahan kale uga soo galaan hub waa helaan ciidamada Soomaaliyeed hub waa helaan waxaa jiro hub laga keenay China waxaa jiro hub 2 mar laga keenay Saudi Arabia riboodyada waa la wada haayaa waa public domain-ka ku jiraan wax yani heli kara waaye ama ha noqoto hub sidii la rabaa loo haaya laakiin waxaa nasiib darre amniga waxyaabaha qaybta ka waxa la yiraahdaa waa siyaasadda hadda xasilan tahayna amniga waxa laga yaabaa inuu xasilo adiga xilligaagii sideed ula tacaali jirtay xaaladda amni ee dalka والله أمنية استراتيجية ولا هين سياسة جودنا ولا هين شعب كان وانا ليش قين جري أو يعني المركز عن لا مسؤولية دوادرات ومسؤولية دوادرات أيضا هذا واحد ربع حكومة إن لا استراتيجية أي شعب كل شقيان مركز ويعني محلي هذا أمنية استراتيجية سياسة أيان كلا هين أيضا أساس هين وحوار دعي جيران يعني وحبا ما دعي لما لها يعني لكن وايرينا يعني دبكي كان تصالة أهان لبدي يكون يلحي تبنكي election كودن كدعي إلا 17 doorashada wax dhib oo yani amni darra oo ka dhashay mala goobaha sala tagjir aniga deegaan doorashadaydu waa Jowhar waxaan inta ka baxay habeen jidkan mari xamaran tagay Jowharan tagay soo noqodkayga sidoo kale aan soo noqday iyadoo wax dhib aan la kulmin haddana xamar lama tagi karo marka annaga waagan shaqeynayna amniga ahmiyadda koobaad oo ahaa ahmiyadaas in uma laha xukuumadda hadda jirtay dawladda wada shaqeyn nuucee ah ayaad aaminsan tahay inay ka dhaxayso laamaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya wallahi ayaga la weydiinaa su'aashaas ma aqaano in wax wada shaqeyn ay ka dhaxayso hay'adaha amniga in kaleeto
hay-addii nabad sugidda waa la baabi'iyey tii booliiska waa la socotaayo wiilal dhallinyaraayo nabad sugidda laga keenay oo aan isleeyahay wax badan inaysan kusoo zaa'idinayn ayaa la keenay infact waxaa keliya kusoo zaa'idiyeen waxaa waa tacdiyaad badan inay shacabka soomaaliyeed u geysteen inaan yacni dhaqan fiican aysan keenin booliiska waxaa lagu ogyahay inuu saaxiib leeyahay shacabka inuu ilaaliyo shuruucda waddanka u yaallo dad u shaqaynaya koofidii nabad sugidda inta laga bedelay koofidii booliiska loo geliyey laakiin weli shaqadii nabad sugidda hayo ayay u muuqdaan marka u malayn maayo ayagana inay wax kusoo kordhinayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynayaashii isaga dambeeyay dalka gabi ahaan waxa ay ka sinaayeen in dagaalamayaasha al-shabaab cafis ay u fidiyaan cafiskaasi loo fidinayay dagaalamayaasha al-shabaab ee madaxda kala dambeysay ay u fidinayeen waxaa jiray dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo la sheegay in dowladda Soomaaliya ay isku soo dhiibeen aragtidaada raggaas dowladda isku soo dhiibay ma waxay yihiin kuwa bulshadoodii ku milmay oo dadkoodii wax la qaybsaday mise waxa ay yihiin kuwa qalalaasa iyo dhibaato dalka ka abuuray aniga markaan joogay dad badan cafiskaas waa fidi jirnay dad badan oo defectors oo ka soo baxsaday oo noo yimidna waa jiraan dadku waa kala qaybsan yihiin qaarna waxaa la yiraahdaa waa low level defectors la yiraahdaayo waa shabaab dadka askarta ah oo yacni culays badan aan lahayn oo raba laakiin inay meesha ka soo baxsadaan qaar badan oo ka soo baxsada waa jiraan qolooyinkaas waxaa la geeyaa meelaha rehabilitationka oo yacni ay ka mid tahay Serendi meelahaasaan geyn jirnay qolo waxaa jira iyagana la yiraahdo mid level ama levelka u dhaxeeyo qoladaas iyo qolada ugu sarreyso ayagana waxa waaye waa hay'adaha amniga nabad sugidda iyo ay la shaqeyn jireen si ay yacni weli xogtii la heli jiray ay weli ay u bixiyaan si ay yacni information uga helno qolana waa qolada ugu sarreyso oo ka tirsan maxaa la yiraahdaa madaxda shabaab waxaa ka mid ahaa dadkii soo dhiibay waagaas maxaa la yiraahdaa Zakariya ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa xasan daahir awees oo diiday inuu ka tanaasulo fikirkiisii oo ilaa hadda aan meel ku hayno marka maxaa la yiraahdaa waxaa la rabaa inay tusaale u noqdaan dadka kale oo isa soo dhiibay laakiin nasiib darro waxaan ognahay Mukhtaar Roobow markuu isa soo dhiibay in si bini aadamnimo aan loola macaamilin in si xun loola macaamulay oo yacni xitaa yacni isagoo yacni inuu ilaa hadda uu xiran yahay sabab uu u xiran yahayna aan la garanayno xasan daahir awees dowladda adiga qaybta ka ahayd xabsi guri ka dhigtay meel gaar ah Mukhtaar Roobow farqiga u dhaxayn kara laba u dhaxayso Mukhtaar Roobow wuxuu yacni ka tanaasulay fikirkii maxaa la dhahaa xagjirnimada ee shabaab uu ka tanaasulay Mukhtaar Roobow waa aragteen asagoo yacni dowladda la shaqeynayo asagoo passport diplomatic in la siiyey oo xishka tagay يعني فكركي بو كتنازلي لكن حسن ظاهر او فكركي حق جرنمدا wili kama tanaasulin wili fikirkii oo haysta saasa waxay keentay asagana inuu xabsi guri ku jiro ninkan uu banaanka u joogo laakiin waxa taas ka daran ninkii banaanka joogay oo ay la rabay inuu tusaale u noqdo kuwa kale ee rabay inay soo dhiibaan in asagii la xiray xurriyadiina laga qaaday sabab la'aan uu xiran yahay maanta dagaalka shabaab ma lagu xallin karaa wada hadal waxa ugu fiican oo lagu xallin karo waxaan isleeyahay waa wada hadal فيري تالبانك ka dagaalamo Afghanistan weerarka Soomaaliya lagu haayo weerar ka badan ciidan ka badan maxaa la yiraahdaa hub ka badan ayuu Mareykanka la tagay uu ka adkaan waayay wali dhibkii waa sii socdaa hadda 2 usbuuc ka hor waxaa bilowday wada hadal bil ka hor baan dhaho wada hadal bilowday wada hadalkaas yaa waa cid oo sponsor gareysay oo hogaaminaysa waa Mareykanka oo arkay inaan yani wax kale lagu yani hal kale tuusin jirin badana yani ama inaad cidii aad kaga adkaato ciidan military aad u jibiso oo aad qabato oo awoodada banaan keentana waa wax la gartay laakiin hadaa ka adkaan weyso shabaab waxa la dagaalamaya 2007 ilaa hadda ayaa la dagaalamaya waa 12 sano ilaa haddana yani dhibaatada maar walba ay geysanayaan waa si badan halka kaliya aniga aan arko oo aan isleeyahay waa lagu xallin karaa يعني مليه دجالك الجوة ده هلا جوجي مليه دجالك والجوسي وذا لكن إلا هذه حل وذا حذر أيو كجرا يعني إن ودن كان سوته
ummadayna ku dhamaanaysa haddii aan sida aan hadda aan ku sii socono Soomaaliya ku dhamaanaysa ma isku dayday intii aad ahayd wasiirka amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya in dawladda Soomaaliya iyo al-shabaab wada hadallo ay dhexmaraan waa tijaabiyey wada hadal aan la bilaabnay warqadaan isdhaafsanay qolooyinka UN-ka ah ayaa qayb nagala ahaa markii dambe aan soo gelinay meel fiican ay marayeen waxaan ku wareejinay xogtaas iyo warkaasba aniga waxaan ku wareejiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa u sheegay meeshay wax marayaan dadkan wada hadalaan noo socda meel fiican ay marayaan wada hadalka meesha laga sii wado mas'uuliyadda ayay saaran tahay marka inay sii wadaan laakiin annaga wixii caawinaada iyo meeshay wax noo marayaan haddii looga baahdo mar walba diyaar aan u nahay inaan yacni aan la wadaagno yaa qaadaya mas'uuliyadda dadka iyo hantida ku baaba'aysa qaraxyada ka dhacay Muqdisho والله ده وحواي وحقاده وحكومة مسؤوليتها هذا يعني حكومة هيستا يا قاضي مسؤولية داس محلي هذا وحنا صعدنا مدحين مع عبد الله فرماجو مركي وكامبين كجري إنه يري على الشباب لبسنا كل ما هنا يعني فيري وحال الربا قفك السياسي قبل لما أوصل سمين كري إنه قاضي الله ما بعنا سبته كريديبيلتي كأجن وكوبابا يا adigana dadka yani beenlow inay tahay ku arkayaan madaxweynaha markuu yimid oo baarlamaanka joogo wuxuu yiri 2 sano shabaab oo campaign ku jiro 2 sano ayaan shabaab ku soo afjaraya wuxuu yiri cidii la dilo waxaan siinayaa cidii soo sheegto qarax shabaab $100,000 aan siinayaa wuxuu yiri hantidii la burburiyo waa dhisaya wuxuu yiri cidii yani dhaawac ka soo gaaro yani daaweyn baan u waxaynayaa intii oo dhan intaas waa ballan qaadyo yani qofka bini aadanka yani waxa la rabaa ballan haduu galay inuu fuliyo la rabaa ballan qaadyo aad u waaweyn waaye hal xabo uu ka fuliyay ma jiro in fact waxa qaraxii October 14kiisii dad ka badan 600 oo qofood ayaa ku dhaawacantay hal qof oo dawladda ay wax u qabatayna ma jiro kusimaha hay'adda nabad sugidda ahna taliye ku-xigeenka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa wariye aan weligii amniga ka shaqayn ما إستلهذا هي مقعبيدي سوى اللي قدك دقي والله واللي قدك دقي ما هي يعني وحا أكتها ومالينا سجى كلية معها ما يربضن أو حاجة ردد عن أقل من يعني شقادة أما خبرة عن أولهين أما أقوان عن أولهين لو ذا ديبي أو عن وذا أجنها يعني ضدان يعني وحبا أن كسو كلين كان لو ديبي مرة يعني أنا مع مقعب لكن tayada dadka xukuumadda la shaqeeyo dadayadooda ay fiican tahay ma aha dad ayaa aaminsan in dilalka qorsheysan ee Muqdisho ka dhaca kaliya aanay ku lug lahayn al-shabaab fakarka adigu ma qabtaa wallahi de maanu fasaasi la ma aha fiiri waxyaabo waa jiraan oo dad isku aana qabiil iyo maxaa la yiraahdaa dad lacag isku haysti iyo oo yani mararka qaar kood dilamo yani saas isku dila waa jiraan laakiin shaqadan oo qaraxyadan la abaabulayo oo meelaha la gelinayo oo yani shacabka Soomaaliyeed lagu bartilmaameysanayo anigu waxaan qabaa shaqo shabaab inay tahay aysan ahayn shaqo kaleeto qof la dilay iyo waa looga shakin karaa qof aan shabaab ahayn inuu dilo waana dhacdaa mararka qaar kood laakiin waxyaabaha ka socda magaalada gaar ahaan yani bilihii ugu dambeeyay ma aha wax oo yani dadaan shabaab ahayn ay geysteen ma aha ma aaminsan xubno ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay kugu soo eedeeyeen intii aad ahayd wasiirkii amniga ee dawladda Soomaaliya in shirkado aad saami ku leedahay aad siisay qandaraasyo arrinkii waa aad beenisay dacwadii halkay ku dambeysay de waxaan raad lahayn marka la keeno qofka bini aadanka dacwada horta waxa waday ninka wada waa Fahad Yaasiin waay taliye ku-xigeenka nabad sugidda haddana ah kusimaha oo waxyaabaha dhibaatada ugu badan oo wadanka socdan ninka wada asaga waay dhibaato dhib aan asaga ahayna meeshaan ma jiro runtii ninka waxaas abaabulayna waa asaga marka qandaraaskaas uu ugu soo eedeeyay qandaraas aan anigu bixiyay ma ahayn qandaraas wasaaradda maaliyadda ay bixisay ahayd waqtigu ugu soo eedeeyayna August ahayd waana yani ilaa hadda wixii ka dambeeyana waa la iska aamuso waxa loo socday markii aan sheego waxaan sheegay qofka qandaraaska haystay rabeen inay qandaraas ka qaateen waana ka qaateen sida wararkay ugu soo gaarayaan wixii dheeraada oo intaas ka baxsan waxa la weydiinaa maxaa la yiraahdaa auditor general ka la weydiinaa asaga yani arrintaas baaray
asagaa wax ku soo waayey hay-addii qandaraaska la siiyey asagaa wax ku soo waayey wasaaradda maaliyadda ayadaa qiratay inay way bixisay qandaraaskan ay bixiyeen marka waxaan u arkayay ewelna waxay ahayd arrin siyaasadaysan la rabay aniga in yacni reputationkayga iyo yacni maxaa la yidhaahdaa sharafteyda wax loogu dhimo nasiib wanaag dee mar haddii aanan aniga wax musuq maasuqana weligay aanan ka qayb qaadan ku jirin ayagana ay wax meesha keeni waayeen arrinkaasna meeshaas ku dhintay waxaad qayb ka ahayd wafdi uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray Beledweyne kulamo kala duwan oo qaybaha kala duwan ee bulshada aad la yeelateen kadib waxaad la kulanteen ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble oo dawladdii aad qaybta ka ahayd ee uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ay ku kala aragti duwanaayeen dhismaha maamulka Hirshabelle 2 sano kadib booqashadan maxaa lagu tilmaami karaa ma horta anigana waxaan ahay nin gobolkaas ka soo jeedo Xasan Sheekh nin gobolkaas ka soo jeedo way labadeena gobolkan ka imaanay waxaan u tagnayna waxay ahaayeen dadkeena iyo constituency-gii aan masalaynay haddii annaga waxna laga tirsanayeen in yacni aan ka wada hadalno wada hadal iyo reconciliation kaas haddii si aan yacni aan iskula meel dhigno iyo waxaa qayb ka ahaa dee axzaab 2020 doorasho la aada axzaab baa lagu aadayaa gobolkaas waa gobolkayni inaan yacni asagana yacni dhinacaasna aan yacni aan wax ka samayno oo aan dadkeena la kulanno shacabkii wixii ciddii wax noo qabtay oo u baahan in wax laga qanciyana aan ka qancino sababtaas aan u tagnay marka waa anagoo yacni meeshii deegaan doorashadayni baan tagnay wax intaas dhaafsiisanna ma jirin waxaa jiray warar soo baxayay oo sheegayay in xisbiga aad qaybta ka tahay ee midowga nabadda iyo horumarka lacag ku dhow 1 milyan oo dollar ay u geeyeen ciidamada gadoodsan ee ku sugan duleedka Balcad ee furmaha dagaalka ka soo gaduuday wararkaas maxaa ka jira arrinkaas sidaad adiga uga aragtay meelaha baraha bulshada waa ku arkay iyadoo lagu soo qoray laakiin wax xaqiiqa ka jira ma laha waa iska been waaye waxba ma maleynay yani ciidanka waa taageersan lahay waxaan u sameynayna waa advocacy in mishaaraadkooda ay helaan waxaan u sameynayna oo kale advocacy ah inay yani raashinkooda ay helaan waxaa kaleeto advocacy ugu sameynayna in agabka u baahan yihiin si ay difaaca u galaan ay helaan waajibaadka iyo mishaaraadkooda laakiin dawladdu saaran yahay dawladda laga rabaa inay meeshaas bixiso wixii tabarucaad oo laga geysan karo waxaan qabaa in laga geysto oo shacabka ay ka geystaan axsaabta haddii ka geysan karto inay ka geystaan laakiin aniga xog aan ogahay oo xisbiga inuu lacag bixiyey oo uu siiyey ugu tabarucay ma jiro waa wax fiican laakiin haddii loogu tabaruci lahaa fahamsanahay dad badan ayaa aaminsan in xildhibaanada qaybta ka ah xisbiga midowga nabadda iyo horumarka intooda badan ay ku soo baxeen musuq doorashadii qabsoontay 2016 2 sano kadib maxaa jawaab ah oo arrinkaas aad ka bixinaysaa waxa way xildhibaanaha hadduu qofka musuq maasuq hadduu ku soo baxo musuq maasuq Soomaaliya waxaan diidanahay waxaan leenahay hal cod iyo qof hal la tago si musuq maasuq uu istaagabo bulsho dhan deegaan dhan oo 20 kun 30 kun xisbi marka ugu tagto ma lacag siin kartaa ma musuq maasuq kartaa lacag ma sii kartaa Soomaaliya waxa aan leenahay waxa waaye annaga haddii shalay wax markaan joognay annaga oo xukunka aan joognay waxaa lagu yimid xildhibaanadii ka horeeyay 2020 waxay ku yimideen hal qof oo nabadoon oo soo xulay oo yacni laaluush la siin karay lacag la siin karay waa laga soo tagay waxaan keenay wax la yiraahdo enhanced legitimacy war oday kaliya yacni kuma filnee hal la kordhiyo waxaan oo yacni waxa la gaaray in beeshii qofka uu ka dhashay 51 qofood ay soo doorato oo tiro ahaan 14,600 oo qofood wadanka ay ka soo doortaan waxaan gaarsiinay in sharcigii oo markaas aan oolin oo sharcigii doorashooyinka maxaa la yiraahdaa sharciga doorashooyinka guddigii doorashooyinka oo aanay jirin inaan waxayno in shuruucdii kaleeto loo baahnaa aan diyaarino infrastructure-kii loo baahnaa in lagu gaaro in la dhammaystiro ilaa hal cod iyo hal qof laga gaarayo waxaa laga rabaa infrastructure-kii maadaama aan u samaynay waxaa laga rabaa xukuumadda hadda joogtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa u sahlantahay 4 sano ay haysteen hal cod iyo qof iyo cod waa la gaarsiin karaa haddii ay yiraahdaan lama gaarsiin karno waxaan u aragnaa inay rabaan in musuq maasuqii hore iyo in qaabab kaleeto in lagu noqdo oo aan anaga raad loo ahayn waxaan aaminsan mana yeeli doono extension ma yeeli doono dawladda waxa loogu daro aniga xildhibaan aan ahay
ma raba in wax la igu daro oo la yiraahdo waxaan rabaa inaan deegaankayga tago inaan dadkayga u tago in yacni aragtidayda iyo fikirkayga iyo xisbiga aan ka tirsanahay waxa uu istaagan yahay in lagu soo doortaan rabaa laakiin ma doonayo in la yiraahdo 2 sano xukuumadda loogu daro madaxweynaha loogu daro 2 sano baarlamaanka loogu daro annaga waa diidanahay taas axzaab 4 sano ayuu haysay maxamed cabdullaahi farmaajo wax ka dhinaana ma jirin sharciga doorashooyinka bisa ka dhinaa inuu keeno asagana diyaar u ahaa ilaa haddana waa la keeni lahaa marka waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed inuu u sheegno waddankan haddii la rabo dawladnimadiisa inay xoogaysato in hore loo socdo hal cod iyo hal qof iyo cod waa in ay dhacdaa 2020 wixii ka hooseeyo waxaan aaminsanahay in yani dib hor la waddanka loo horseedayo ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd bulshada ku daawanaysa shacabka Soomaaliyeed waxaan u dirayaa dad badan waxay yiraahdaan maxaa la yiraahdaa dawladdii waa daciiftay dad badan baa waxay yiraahdaan dawladda wax ma qabanayso dad badan baa waxay yiraahdaan mucaaradka hortaagan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed horta inuu sheego adduunka maanta axzaab baa ka jirto axzaabtana waxa waa fikirka xisbiga xukunka haayo fikirka guduwan waa inuu jiraa waa in yani qaladaad markay sameeyaan alla qaban karo horta xisbiyada mucaaradka waxay u taagan yihiin waa inay yani danaha shacabka Soomaaliyeed u taagan yihiin kow waxa kale oo rabaa arrinta amniga inaan ka hadlo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay amniga qayb ka noqdaan inay taageeraan hay'adaha amniga ay la shaqeeyaan inay yani ayagana kaliya aysan isku halaynin ayaga naftooda amniga ay sugtaan inay foojignaadaanna waa laga rabaa yani shabaab waxa waaye haddii meelaha dawladda kaliya ay ayadu xirato waxay u noqon doonaan waa meelihii shacabka marka shacabkana inay foojignaadaan xaafadaha ay isabaabulaan amnigoodana ay ka fikiraan waa la rabaa waxaa kaleeto ugu baaqaya shacabka waa 2020 waxaa la rabaa inaad xuquuqdiina heshiin oo xuquuqdaas waxaa ka mid ah waajibaadka dastuurkooda siina inaad codka aad bixisaan aad qof soo doorataan dawladdan legitimacy ama sharci inay hesho dawlad sharci ku fadhiisa inay noqoto legitimacy ay helaysaa marka le waa inay legitimacy-gaas ka heshaa shacabkeeda ma aha inay ka hesho international community inay ka hesho ma aha in dad la soo magacaabay in mar walba meesha loo keeno laakiin shacabka Soomaaliyeed inay ka fikiraan inay ka qayb qaataan doodaha laga hadlayo doorasho inay ayagu wax doortaan inay dawladda ku dhiirigeliyaan wax ka yarna aan la yeelin waxaan doorasho ahayn wax ka yar inaan la yeelina qaba aniga daawadayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Cabdirasaaq Cumar ahna mudane ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inta waraysi noocan oo kale aan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo amaan Allah